marka meeshaas waxaa iiga soo baxday runtii in aan si toos uga faa'iideysan karno degmooyinka oo si toos aan uga shaqeyn karno degmooyinka maadaama dad saas u dhisan oo saas u diyaarsan ay joogaan wixii weynaa ay ii sheegeen waxaa ka mid ahaa degmada Boondheere in laga furay 200 oo gabdhood oo la baraayo afka Soomaaliga iyo sida wax loo qoro waxay dhaheen gabdhahaas waxbarashadaas ay baranayaan waxay ka mid tahay inay gaarsiiso bari inay codeyn karto Maxamed iyo Caasha iyo Cali iyo Jaamac inay kala dooran karto laakiin haddaysan waxba baranin aysan kala dooran karin isla meeshii haddana gabdhihii kale oo degmooyinka kala gudoomiyoonka ah mid kasta waxay ballan qaaday in ay degmadeeda waxbarashadaas dadka waaweyn ka furayso dhalinyarada marka maxaan leeyahay iskooladaas oo kale aniga da'deeda wax meesha waa ku yariina u maleynaa waxaa la dhihi jiray Seeraale iskoolka habeenkii la dhihi jiray aniga waxaan deganaa Xamar Jajab dugsiga dhexaan dhiganay habeenkii iskool commercial meel la dhaho dekada iyo guryo iyo laga dhigtay iskoolka dadka waaweyn ah iskoolan soo dhigi jiray dadkaas waaweyn aan wax bari jirnay dhalinyarada marka degmooyinka joogay haweenka inta isku xirtaan saacad waxbarashada ama shaqada ma ahane ana loo sameeyo barnaamij annagana habeenkii aan dadka wax ku barno oo aan gaarsiino ana loo sameeyo dhalinyarada waliba shaqo ay qaban kartiin waa shaqo aad u habboon waay waxaan idinka ballan qaadaynaa inaan markasta isku xirno